saraakiisha ciidanka degmada Tawfiiq ayaa ka tacsiyeeyay geerida taliyahoodii gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Cumar Gacayte oo 20kii bishan ku geeriyooday shil gaari oo ku galay wadada u dhaxaysa degmada Tawfiiq iyo magaalada Gaalkacyo. Allah u naxariistay taliye Gacayte ayaa ahaa haliyay ku suntanaa kana shaqeeyay amniga iyo xasilinta gobolka Mudug gaar ahaan bariga Mudug ee degmada Tawfiiq. saraakiishan ayaa uga tacsiyeeyay qoyskii iyo dhammaan beesha Surre iyo dawladii uu ka tirsanaa geerida naxdinta leh ee ku timi taliye Gacayte waxaana ay sheegeen inay u taagnaan doonaan difaaca iyo doorkii hogaamineed ee taliyahooda waxaana ka mid ahaa hadaladoodii wa inma tuwafuna ujurakum yawm alqiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. taliye Gacayto waxaan uga tacsiyeynaa muslimiinta dhammaan eheliyadii dadkii uu ka dhashay dadku dhalay qabiilka dawladii iyo intuu ka tirsanaa oo la shaqeynayay intaas baan ka tacsiyeynaa. dadku waa inay ogaadaan kulligood inay dhimanayaan. aayadaha quraanka hadda waxaa ku jirtay kullu shay'in haaliku illa wajha Allah billahi إلا إلهي وجهك سموجي ضدك دمانتود أنت كلوا هلاك سميسان مخلوق ونوع هلاك سميان مركز سدا إلا Gacayte hadda markii laga hadlo taariikhdiisa macnaha aasaaskii meeshan ciidan haday noqoto ninkii lambar 1 aasaasay buu ahaa aasaasii buu ahaa wixii uu maanta ka tagayna waa waxaan hadda meesha ka muuqda يعني أوركيسي وحكا بدن بوي وحا مركا هادي أو دينتين أبدا أنه دنبا إنتانو ماشي وحا كمغلا ووضا Gacayte وفكي هادا إسدهي وانا يدوم تيما هنا هادا نينيغا دينتين ومانو إلهي أو نحريستو صبري أيوان الله نغسيو وحالينا مركا إنتان ومانتا ينغو وحانا وضا Gacayte إلهي هو نحريستو سمر يا إيمان الله نغسيو دمان مامولكي مامولكا قبيلكا عيدانكا دادكي قويسكي أو كبحي سمر يا إيمان الله نغسيو إلهي نبدأ خير قبا هو بدلو برهان تسانا تكتي برشقي سنة نغمتي إلهي برجيس هنجا مودين إلهي برجيس هنور حيو سمري إيمان الله نغسيو حوي أنو هاي سراكيشي كله جوتي دجملا يدفاع يخت سنة سراكيشي كوسي سوانو مركا قار آديات بانو وتيرا يسناي غيري دفوش كرو kudhacday marka waxaanu leenahay sameeyo iimaan Allah naga siiyo dhammaan qoys ilaahay ku ron yahay iyo ilmo badal khayr qabaanu leenahay hada qof aad jeceshahay inaad u madil kadib qof aan necebtahay inaad u manoolay kadib qof aan necebtahay ku madil qof aad jeceshahay ma noolay hooyada ayaa waa dhimanaya adaa dhimanaya farxaya dhimanaya anaga dhimanayna kullu nafsi daaqatu mawt qof kasta waa dhimanaya waxaan leenahay marka ummadii iyo qoyskii baa si gaar ah wasi tacsiyeynaya ayagoo ka tagay sawiyay walaalahay ka siiyo bismillaahir rahmaanir rahiim Allah u naxariisto General Gacayte waxaan sheegaynaa dawladda Puntland iyo degmada Tawfiiq oo shaqeyn jiraba sawiraya iimaan Allah ka siiyo General Gacayte waxa weeye ma dhiman waa dhuntay saaka waxa weeye waxa soo qaaday waxa soo ciidan iyo waxa saraakiil asaga soo leeliyay waa abuurkiisii meel fiican buu nooga tagay shaqadii u taagnaa waxaan u sheegaynaa dawladda Puntland iyo reer Tawfiiq inaan u taaganahay aan buuxin karo insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان waxaan saaka u nimid oo uga tacsiyeynaa geerida xanuunka badnay ee taliyahaygii ciidamada Puntland gaashaanle dhexe Maxamed Cumar kuma dheer Gacayte Allah u naxariisto
eheladiisii iyo ciidankii iyo beeshii uu ka dhintay bismillaahi raxmaani raxiim maanta halkan waxaan u dhoobanahay oo taaganahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun taliyihii naga dhintay inaan u tacsiyeyno dadkii uu ka dhintay iyo isagiiba inaan maanta u tacsiyeyno baan halkaan u taagnahay gaar ahaan allah u naxariistaan leeyahay allah u naxariista baan leeyahay maanta haliyey naga dhintay oo Soomaaliya ka dhintay uu ahaa hada allah u naxariisto nin walba waa dhimanayaa godkaasuu gelayaa nin walba ha ku tashado inuu dhimanayo allah u naxariisto allaha u naxariistee taliya Gacayte ayaa lagu xasuusan doonaa doorkii uu ka soo qaatay nabadgelyada gobolka Mudug iyo doorkii uu ugu aadanaa degmada Tawfiiq Cali Gaawido degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug